ku xidhnow janalka dadweynaha subscribe saar oo ku soo biir. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحابتك وحرن channelka dadweynaha ee YouTube. maanta waxaan barnaamijkeena ku soo qadan doonaa ninkii badda gudaheeda ku dhex sugnaa oo ku dhex noolaa muddo 438 maalmood. yacni waa sanad 2 bilood iyo 2 week. haddaba ninkan ayaa waxa uu jabiyay rikoodhka Guinness kadib markuu noqday ninkii ugu horeeyay ee waqtigii ugu dheeraa ku dhex noolaa ee ku dhex lunsanaa badda gudaheeda. haddaba han daawano qisada cajiibka ah ee ninkan ku dhacday min bilow ilaa iyo dhammaad. balse waxaa muhiim ah intaynaan qisadiisa guda galin in aynu wax ka ogaano baddii uu ku dhex dhunsanaa ee muddada intaa le ku dhex sugnaa nooca ay tahay. baddan ayaa waxaa lagu magacaabaa badweynta Pacifica, waana badda ugu weyn uguna khatarta badan dhulkan aynu ku noolahay. yacni haddaynu isbarbar dhigno guud ahaan qaybaha dhulka ee qalalan iyo badda Pacifica, ballaca baddaasi oo keliya ayaa ka weynaanaysa guud ahaan dhulka oo dhan. badweyntan ayaa ah mid gebi ahaanba bannaan meelo yaryar oo aad u kala fogfog mooyaane. aad ayay u adag tahay baddaasi haddii aad ku dhexalowday sidii lagu soo heli lahaa, waana sababta ka dhigaysa qisada maanta tii ugu layaab ka badnayd. qisada wiilka aan maanta barnaamijkeena ku soo qaadan doono ayaa waxaa lagu magacaabaa Jose Salvador. waxa uuna ka soo jeedaa jamhuuriyadda lagu magacaabo Salvador oo ku taalla Ameerikada dhexe. haddaba ninkan ayaa waxa uu noqday ninkii ugu horreeyay ee waqtigii ugu dheeraa ku dhex noolaa badda. arrinkaasi oo aad uga adag tahay shakhsiga bini'aadamka ah inuu waqtiga intaasi ile ku dhex sugnaado badda gudaheeda. safarkan uu wiilkani galay ayaa waxa ugu talagalsanaa in ay ku qaadan doonto 2 maalmood oo keliya. ninkan ayaa waxa uu ahaa nin kalluumaysato ah oo aad u jeclaa kalluumaysiga. sidoo kale waxa uu lahaa wiil saaxiibkii ah oo ay iska kaashan jireen iskana caawin jireen dhinaca kalluumaysiga. haddaba maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxa uu go'aansaday inuu soo kalluumaysto. hase ahaatee sidii hore maaha. niyadiisa ayaa waxa ku soo dhacday inuu badda xoogaa gudaha hore u yaro galo si uu kalluun fiican u soo helo. haddaba maalintaasi uu go'aankaasi qaatay ayaa waxa maqnaa wiilkii saaxiibkii ahaa. balse safarkan oo ugu talagalay inuu 2 maalmood ku qaadan doono ayaa waxa uu ka yara walaacay keligii inuu baxo. waxa uuna raadiyey shakhsi raaca oo ay soo wada kalluumaystaan. waxauna ugu dambeyn soo helay wiil yar oo da'diisu tahay 23 sano oo lagu magacaabo Ezekiel Cordoba. wiilkan yar ayaa fikraddii ninkan ku raacay kana ogolaaday inuu raaco uu la soo kalluumaysto. taariikhdii uu safarkooda bilaabmay ayaa waxa ahayd 17 November 2012 ayagoo isla markaana safarkoodii ka anba qaaday tuuladooda yar ee lagu magacaabo Costa Azul oo ku taalla xeebta Mexico. waxa ayna labadooduba ku heshiiyeen inay badda gudaheeda ku dhex maqnaan doonaan muddo 30 saacadood ah. waxayna ka haysteen doon aad u yar oo ah nooca lagu kalluumaysto. raggani ma aysan ahayn kuwa u soo diyaargaroobay sidii ay isaga caabin lahaayeen dhibaatada ay badda gudaheeda kala kulmi doonaan. doonta yar ee wadeenna giddigeedaba waxay ka koobnay 7 mitir. ma aysan lahayn saqaf amba shiraac. doonta yarra waxaa saarnaa mishiin aad u yar. sahay aad u badan ma aysan soo qaadan. waxa ay soo qaateen daawooyin dhinaca kalluumaysiga ah iyo qaanad yar oo ay ugu talagaleen marka ay kalluunka qabtaan inay ku ururiyaan. sidoo kale waxaa soo gaadhay akhbaar sheegaysa inay duufaan kusoo food leedahay goobta ay ku sugnaayeen. haddana iyadoo isaas tahay waxa riixday duruufta oo umaysan joojino way socdeen ayagoo isla markaana u baxay si ay nolol maalmeedkooda u soo helaan. 120 kilomitir ayaa u socdaaleen goobtii ay ku tuhmayeen kalluunka. haddaba saacaddu cabaaro markay ahayd 1:00 habeenimo ayaa waxa soo food saartay xaalad xun kadib markay baddii ku kacday duufaan xunna ay ku dhufatay ilaa ay ku dhawaadeenba inay doontii la dhacdo. arrintaasi oo sababtay inay daawooyinkii iyo waxyaabihii ay siteen badankooda ay badda ku shubaan, kuwaasi oo qiimahooda kor dhaafiya $10 ayagoo isla markaana uga cabsi qabay in ay doontu la degto miisaanka saarnaa awgeed. xataa waxa ay badda ku rideen aaladii ay ugu talagaleen inay kalluunka ku urursadaan, balse ay miisaanka doonta saarnaa uga khafiiftay hore meesha uga dhaqaaqaanuun. waxa ay socdaanba saacaddu markay ahayd 7 subaxnimo ayaa waxa ay 24 kilomitir ku soo dhawaadeen xeebtii ay ka tegeen ilaa ayba awoodi kareen inay arkaan buurihii. balse nasiib darro hal mar waxaa istaagay oo shaqayn waayey injinkii ay doontu ku socotay. arrintaasi oo sababtay inay duufaantii ku ciyaarto hadba dhinacu riixriixdo ayadoo isla markaana dabayshii duufaantu si tartiib ugu soo riixday dhinacii mawjadda badda. waqtigaasi raggani ma aysan haysan wax karti iyo awood ah oo duufaantan isaga caabiyaan. balse arrinta lagu farxo ayaa waxay ahayd waxa ay siteen raadiyoogii ayaa waxa ay ka waceen ninkii madaxda u ahaa. waa uuna u dhacay waxayna uga warrameen marxaladda adag ay ku sugan yihiin iyo weliba goobta ay joogaan. mas-uulkoodii ayaa waxa uu ku yidhi sida ugu dhaqsiyaha badan ayaa laydiin soo gaari doonaa, waxaana sida ugu dhaqsiyaha badan ugu wargelinayaa qolyaha gurmadka degdega ah arrimaha si shaqada ku leh. balse nasiib darro intay ku hadlayeen raadiyooga ayaa waxa ka dhacay dabkii. buurihii iyo waxay arkayeen indhahoodii waa uu ka qarsoomay. balse walo raggaasi booskooda haddii aad ku sugnaan lahayd, xidhiidhkii kuugu dambeeyey eed la lahayd badda dibaddeedana uu kaa go'o. dabayshii duufaantuna hadba marka kasii dambaysa ay kuu sii fogayso ay kuu sii riixdo dhinaca mawjadda badda.
boolihii iyo waxyaabihii ku muuqdayna adigoo arkaya ay marba marka kasii dambaysa ay kaasii qarsoomaan. runtii waa xaalad aad u adag oo na sawirin karin. waxaa sida ugu dhaqsiyaha badan isla markiiba usoo baxay ninkii madaxda u ahaa oo sitay koox badan oo kalluumaysataa ayagoo isla markaana usoo baxay si ay u raaraadiyaan. xataa waxaa lasoo kaxaysta diyaarado si ay badda dusheeda u dulmarmaraan ay u raadiyaan. raadintoodii ayaa waxay ku qadatay ilaa iyo 7 cisho ilaa ay ka samreen oo ay waayeen. balse nasiib darro raggii waxaa la tagtay dabayshii. muddo 4 cisho oo keliya ayaa xeebtii waxa ay ka fogaadeen oo ay ka turkeen masaafo dhan 450 kilomitir. waxa kaliya u muuqday indhahoodu qabanayaan waa bad iyo cir. xataa haddii ay sheedda ka arkaan diyaarado ama maraakiib ma aysan jirin waxay ku ishaaraan amba ay u taagaan ay ku tusaan waxa aan ka ahayn gacantooda. xaaladii ayaa ku adkaatay oo xataa caafimaadkoodii ayaa isbedelay maadaama ay daawooyinkii badankooda iska daadiyeen. raggii ayaa quus qaatay oo samray. haddaba waxay isku dayeen si ahaataba inay si uun ku noolaadaan. dhinaca cuntooyinkooda waxay qaqabsanayeen kalluunka hareerahooda socda iyo shimbiraha. dhinaca cabitaanka waxay urursadeen caagadaha balaastigada ah ee badda u sabaynaya si ay ugu urursadaan biyaha roobka. balse waxaa dhacaysay inuusan roobku di'inba muddo bilooyin ah. haddaba waqtiyadaasoo kale waxay isku dayayeen inay cabbaan dhiigga diimbiyoodka iyo weliba kaadidooda iyadooysan kaadidu wax dheefa lahayn. midaasi cagsigeedana ay leedahay dhibaatooyin dhinaca caafimaadka ah. balse kolley xaaladaasoo kale markaad ku sugan tahay naftuna ay ku hayso waad isku day wax waliba afkaaga qooya inaad isticmaashid. runtii haddii uu qof soo maro oo u noolaado habka ay raggaasi u noolaayeen balse waro idinkoo 2 qof oo keliya kala bartamihii baddan aad ku sugan tihiin oo idinkoo sidaasi uun u fadhiya habeen idiin soo galo waagu idiin baryo habeenkii kale idiin soo galo waaga kale idiin baryo oo wiig idinku soo galo oo wiigii dhammaado oo bil idinku soo gasho oo bishii dhammaato bil kale adigoo isla markaana kor fadhiya doon yar oo 7 mitir oo keliya. hawsha keliyaad qaban karaysaana uu yahay inaad kalluun badda ka dhex laalaacdo. hubaal duruufaha noocaasina waa duruufo qofka ku keeni kara inuu caqligiisii waayo. waana arrinta ku dhacday ninkani wiilkii yaraa uu soo kaxaystay. sida uu ku warramayo ninkana lagu magacaabo alfringa. wiilkii yaraa uu soo kaxaystay inay isweheshadaan 4 biloodun kadib wiilkii yaraa waxaa ku dhacay inuu miirkiisii waayo. jidhkiisii ayaa wiilkan aad u jilcay ilaa uu mararka qaar ku fikiroba inuu isdilo. waxa uu noqday qof xanuunsan iyo aad u jilicsan oo tacbaan ah iyadoo sabab u ahayd duruufaha ay ku sugnaayeen iyo weliba cuntooyinka caydhiin ay cunayeen iyo weliba cabitaanadii ka koobnayd kaadidooda iyo dhiigga. ilaa uu wiilkii yaraa markii dambe uu gaadho heer uu cuntooyinkaasi iyo cabitaanadaasi awoodi kari waayo iska joojiyo. jidhkiisii ayaa waxa uu bilaabay inuu marba markaasi dambaysa uu aad u sii nuqsaamo. xanuunkii hayay ayaa aad uga kordhay ilaa uu markii dambe halkaasi uu ku geeriyoodo. 4 bilood kadib ninkii waxa uu waayay shakhsigii keliya ahaa ay isweheshanayeen. ninkii haatan xataa xaaladiisii nafsiyadeed ayaa aad isu beddeshay. murugo iyo warwar kale ayaa soo food saaray maadaama uu shakhsiga keliya hatee la socday uu hortiisa ku naf baxay. ninkan ayaa waxa uu leeyahay muddo kadib waxaan xaaladaasi adag ku sugnaadaba. maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxay soo agmaray markab sidii xamuul. waxa uu leeyahay gacanta ayaanu taago aad ayaan ugu dhawaaqay. sidoo kale waana la arko weliba waxay aragtay 4 nin oo xagga sare saarnaa oo gacantay taagay. sidaasi ay tahay haddana markabkii imuusan istaagano way dhaafay. sawiro bal adiga oo badda gudaheeda ku sugnaa in ka badan 4 bilood oo hal mar ku soo agmaro markab. farxad darteed waxay odhanaysaa khalaas dhibaatooyinkii iyo rafaadkii hadda ayaad ka baxaysaa. farajka ilaahay hadda ayuu kuu soo diray oo haddana adigoo sidaas soo faraxsan hal mar kaa tago. runtii waa munugo kale. ninkan ayaa waxa uu leeyahay 2 jeer ayaa waxaan ku fikiray inaan isdilo. mindidii aan sitay ayaan 2 jeerba qoortiisa ka qabtay. haddana waxaan ka cabsaday xanuunka geerida oo waan ku dhiiran waayay inaan ismariyo. ninkii 11 bilood ayaa badda gudaheeda ugu dhammaaday. waxa uuna jaray masaafo kor u dhaafaysa 8,000 oo kilomitir. dharkiisii ayaa ku dul googo'ay. ma haysto dhar fiican uu xidho. kooko iyo jeexjeex yaryar oo cadceedda isaga dhiga mooyaane. timihii madaxa iyo kii gadhka ayaa aad ugu baxay. caafimaadkiisii dhinaca jidhka iyo dhinaca maskaxdaba xaaladoodu ma wanaagsana. weli waa keligii sidii buuna badda ugu dhex lunsan yahay. welibana 11 bilood mooyaane 4 bilood oo kale ayaa badda gudaheeda ugu dhammaaday. waxa uu leeyahay sidaan xaaladaasi ugu sugnaa ayaa hal mar waxa aan shiidda ka arkay madmadow yaroo badda cidhifkeeda ka soo taagan iyo duulimaadkii shimbiraha oo aad u batay. waxa uu leeyahay maalin badhkeed ayay ku qaadatay inay jasiiradii toos igu soo muuqato. markay jasiiradii toos igu soo muuqatay waxaan go'aansaday inaan doonta ka dhex baxo oon dabbaal ku tago jasiiradda si aysan doonta yari mar labaad haddana badda gudaheeda igula dhex laaban. ugu dambeyn waxa aan soo dabaashaba jasiiradii waa aan soo gaadhay. inkastoo jasiiradda yari ahayd mid bannaan oo lama degaana sidaas ay tahay haddana waxay soo muuqday hal guri oo dhisan. gurigii markaan tagayna waxaan arkay kii oo la degan yahay. farxad ayaan iskala garan waayay. ugu dambeyn 438 cisho kadib waxa uu markii ugu horreysay la kulmay oo uu la hadlay noole aadana ah kadib markuu badda gudaheeda dhex socdaalay masaafo gaadhaysa 11,000 oo kilomitir. yacni aad ayay u adag tahay in la arko bashar aadana ah oo xaaladaasi adag uu nolol kaga baxo. laakiin midaasi waxay ku caddaynaysaa awoodaha ilaahay iyo inuusan qofku dhimantiisa oona dhammaan. jasiiradda yar oo ninkan soo gaadhay ayaa waxaa lagu magacaabaa Ebon Atoll. waa jasiirad yar oo xoogay u dhow dalka Philippines. haddii uusan ilaahay subxaanahu watacaala jasiiraddaasi yar kusoo beegi lahayn dhul engegin ma uusan arkeen ilaa laga gaadho Philippines.
filibiina jasiiradda yar waxa ay ka fog tahay 4,000 oo kilomitir haddii uu jasiiradda yar u dhaafi lahaana siday u badan tahay inuu filibiin gaadho waxa ay ku qaadan lahayd 240 maalmood oo kale laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa ku soo beegay jasiiraddaas yar ee aadka u naqan markii la baahiyey nolosha ninkan ayaa xukuumadda dalkiisu waxa ay ku soo qaatay diyaarad isagoo isla markaana markii la daaweeyey ee uu dhibaatadii iyo rafaadkii uu soo maray ka nastay waxa uu go'aansaday inuu qoro buug ka hadlaya qisada nolosha adkeedu soo maray hase ahaatee intaasi kadib wiilkii yaraa ee raacay ee badda gudaheeda ku soo dhintay qoyskiisii ayaa waxa ay maxkamadda u gudbiyeen dacwo ka dhan ah ninkan ayagoo isla markaana ku eedeeyay in markii ay xaaladiisa ku adkaatay wiilka yar intuu dilay oo cunay sahayna uu ka dhigto hilibkiisa intaasi oo dhan uu ku noolaa runtii waxyaabaha ay qoyskani ku dacwoonayaan waa arrimo dhici kara dhacdooyinka noocaasina waa kuwaan ugub ahayn oo hore loo arkay dad markay xaaladii ku adkaatay is cunay hase ahaatee cid la joogtay oo aragtay oo ku caddayn karaysa inuu arrinkaasi ku dhaqaaqay ma jirto xataa haddii uu arrinkaasi ku dhaqaaqay uu sameeyeyba ilama aha inuu caddaysanayo oo odhanayo waan sameeyey hadal iyo dhammaan ninkii haatan wuu nool yahay oo wuu ladnaaday oo wuu iska fiican yahay balse idinka aragtidiina sidee idinla tahay ma idinla tahay arrinkay qoyskaasi ku dacwoonayaan inay run tahay arrinkaasi idinka ayaa idin dhaafaya dhinaca hoose kommentiga kaga faallooda intaynu barnaamijyada ma sugi doonaba assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu ku xidhnow janalka dadweynaha sabskaraib saar oo ku soo biir